السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عكسو دواتان دوب فوتوشوب لبدا كوني لباتني كودا tusmada sideedaad dabcan toolkii ugu dambeeyay oo aan ka qaadanay Adobe Photoshop wuxuu ahaa gradient tool. haatan casharkan waxaan doonaynaa ku qaadano blur tool and dot tool. blur and dot dabcan waxay leeyihiin subtools, sidoo kale toolskooda meelaha ugu muhiimsan ama subtoolskooda ugu muhiimsan ayaan isla qaadan doonaa annagoo intaba ku falgelin doono sawirka haatan idin muuqdo. Okay, ugu horreyn waxaan ku hormaraynaa dot tool haatan saa ujeedaan waxaan oo dooran dot and ban. marka waxaan qaadanaynaa dot and ban. dot dabcan waxaa loogu talagalay sawirka haddii markaas mugdi uu ku jiro inaan mugdi uga qaado. sidoo kale sawirka hadduu micnaha shadow uu leeyahay oo kale, sidoo kale shadowgiisa inaad white inaad ka dhigto. inta badan waxaan naqaanaa sawirada shadow inuu mugdi yahay, mugdigaas micnaha inaad ka dhigto white dhan kasto. wuxuu leeyahay option bars oo haatan idin muuqdo. this option bars marka qaybtan range waxay noo taagan tahay midtones. marka waxaan doonaynaa colorka guud oo sawirka micnaha uu leeyahay markaasito dhanka face-ka ama wajiga inaan bedelno. sidoo kale exposure dabcan waa xaddiga saameynta uu ku yeelanayo marka aad ku falgelinayso sawirka. wuxuu noo joogaa 20. sidoo kale range-gana wuxuu noo joogaa midtones. brush-kana sidoo kale wuxuu noo yahay smooth brush uu noo tagay. marka waxaan isku dayaynaa in sawirkaanayto aan soo muujino dhanka micnaha face-ka oo kale ama aan cadeyno. ugu horreyn waxaan leenahay click and drag. dabcan waxaan ku jijiidaynaa qaybaha sawirka micnaha uu ka madow yahay oo aan doonayno markaasayto inaan ka cadeyno. waa qiyaasaysaa marka sawirka xaddi intee la-eg oo dhanka micnaha cadeyska oo kale aad u samayn kartaa. waa ku qiyaasaysaa markastoo marka aad ka qaado left click oo haddana mar labaad aad taabato oo kale ama aad qabato marka xaddiga saa hadda u jeedaan oo kale uu kasii siyaadaya. haddii aan doonayno inaan weynayno waxaan taabanayna right bracket, xaddiga waan ka yareynayna waxaan ka dhigaynaa 10 enter. ku celinaynaa mar labaad marka. sidoo kale shadow haddii aan rabno inaan isagana cadeyno ku celinayno waxaan leenahay enter. dot tool waa isla fahanay waxaa loogu talagalay in sawirka aad ku soo muujiso haddii micnaha sawirka markaasito uu mugdi ku jiro oo kale. sidoo kale qaybta micnaha shadowga sawirka uu leeyahay oo kale inaad ku muujiso. sidoo kale qayb kale micnaha waxaa jirto highlight option bars markaad tagtay. highlight-ka dabcan waa qaybaha sawirka micnaha iftiinka uu ka hayo iftiin ahaan marka sawirka micnaha ugu aadan yahay oo kale ayuu wuxuu ku suurtagelinaysaa inaad si cadeyso. haddii aan u gudubno ban tool waxaa loogu talagalay isagana cagsigiisa waa micnaha kii hore cagsigiisa sawirka in aad ku madoweyso ama sidoo kale sawirka brightness-kiisa ama muuqaalkiisa oo kale haddii iftiin badan sawirka micnaha uu ku jiro oo kale waxay ku suurtagelinaysaa ban tool iftiinkaasayto inaad sawirka uga yareyso. ama sidoo kale waxaad samayn kartaa dhanka timaha oo kale waxaa ku samayn kartaa isagana in aad kusii madoweyso. haatan marka waxaa noo dooran ban tool exposure, xaddigiisa waxaan ka dhigaynaa percentage ahaan 10. sidoo kale qaybtan waxaa noo dooran midtones-kan dhaafayna marka. okay enter right bracket saan usoo weynano. okay intaa wixii ka dambe marka dhanka tinta marka waxaan ku sameynaynaa blacking waa madoweynaynaa micnaha waa kusii daraynaa kulli. sidoo kale waxaan soo dooranaynaa highlight or shadow or highlight si uu saameyn u sii yeesho. shadow tinta dabcan inta hoos ka ahaa badan xaddiga marka saa'id u noqonaa waxaan leenahay waxaan ka dhigaynaa 2 enter. waa sii daraynaa keliga leenahay ma labadan kusoo celinay dabcan xaddiga intaasaan ku dhaafaynaa. ishoo kale waxaan samayn karnaa naftirkeeda inaan xoogaa ku yar madoweyno si aan usoo dhaweyno sawirka. control plus aan ka dhigaynaa midtones.
طبعا انت wixii dhamay waxaan filaa inaan isla fahnay dot and ban tool waxa ay qabtaan iyo sidoo kale qaabka loo isticmaalo iyo waxba ay ku suurtagelin karaan marka aad Photoshop-ka joogtid. haddii aan kasii gudubno dot and ban waxaan sidoo kale u gudbaynaa blur tool waxaan soo dooranaa sharpen. marka sharpen ku suurtagelinaysa sawirka in markaas effectiga ah ku sameyso kale inaad soo muujiso ama aad colorkiisa inaad xoojiso kale ay ku suurtagelinaysa sharpen. marka qaybtan haatan aan joogno kale haddii aan rabno inaan xoojino xaleynayo ama qaybta sawirka kamid ah oo aan doonayno markaas inaan xoojino ayaan u isticmaali karnaa sharpen. okay waxaan leenahay click then and drag. okay control z daba xadig inuu aad u weyn aan filaa waxaan ka dhiganaa 20 oo kale. marka sawirka macnaha laga fahmo ama laga dareemo lama doonayo taasa marka waxay keenaysaa inaan xadiga aan yareeno si sawirka macnaha uu noqdo markii muuqaalkiisa la fiiriyo asal natural macnaha sawir iska caadi oo markaas la qaaday oo kale waxba aan laga bedelin. control minus daba kadib waxaan u gudbaynaa blur. blur inta badan is a common xitaa waxa ku arkaysaa dhanka applicationada xitaa mobilada blur way leeyihiin inta badanna waa la isticmaalaa. blur waxa waa qayb sawirka mid oo kale inaad aragtidiisa inaad yareyso inta badan waxa loo isticmaalaa sawirka backgroundkiisa markii blur markii la isticmaalayo. waxaan leenahay blur control minus or control plus. وغير marka waxaan leenahay sameynayna qaybtan backgroundkiisa sawirka iska gaarayaan oo kale ayaan brush ku jiidana waxaan leenahay click and drag. haddii aan isticmaalayno dot tool oo kale sidaan wada ugu sheegay waa dhanka macnaha ban wuxuu ku leeyahay dot and ban qaybta kale spong. marka labadana ugu muhiimsan kore waxaan rabnaa sidoo kale inaan xogaa midabkiisa aan ku madoobeyno go-ayar ugu wato. طبعا waxaan filaa inaan isla fahanay dot and blur waxa ay qabtaan marka aan joogno Photoshop. blur marka isticmaalayso Photoshop aad joogto qaybo kale macnaha waxa jirto Photoshop gudaheeda blur ku sameyn karto. idan insha Allah isla gaari doona laakiin waxaan haatan ku guda jirnay oo ku qaadanay blur toolska ee leedahay Photoshop-ka. sidoo kale waxaan filaa inaan isla fahanay labadaba inta dabcan sida aan haatan u soo qaadanay ayaa inta badan loo isticmaalaa qaabkaas inuu u shaqeeyaan tan iyo cashir dambe inta aan ku wada kulmi doono waxaan idin leeyahay idinkaga tagay. wassalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.